إلهي مهديس ما أنت وحى السوق يمد حرونت دلدا برشاد ريت كفرتا سوماليا سوشانسا maaragtay inta badan dadkii u ahaay maaragtay buddiga u ahaay bulshada rayidka oo ay kamid tahay culimada oo ay kamid tahay dhaqanka oo ay kamid yihiin haweenka oo ay kamid yihiin ganacsatada oo ay kamid yihiin qaybo far badan oo maaragtay kamid ah bulshada rayidka waxaan arrinka maanta shirka ku saabsanaa shir la qorsheeyay oo maaragtay gobolka Banaadir ay qorsheeyeen in bulshada magaalada Muqdisho ku nool ay ugu wada tashtaan waxyaabaha nolosha arrimaha bulshada quseeya siyaasadda iyo amniga shirkaas oo baaqday inaan muujino dareenkeena ka bulsho rayid ahaan kadib marka aan la tashanay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxay noola muuqatay in aan shirkan ka soo saarno warmurtiyeedkan warmurtiyeedka nuxurkiisu wuxuu yahay in aan taageerno oo aan maaragtay soo dhaweyno in shirkaas la qabto وليبنا عن عصنا وقت دو إن شركة القبض كدبنا معركة سي فرسميسن أو هبيسن أو مسؤولية يسحلقان وكجرو شركة صورده أو وضوين كلاجي أبو إن ضد بدن معركة كجران عبسي معركة العبسي ترو وحون أقرنيه هو المرتيات كسيدة ورقدان ورمرتيات كوحي كسعطا وانرمنا إن لو ذاك نقدوميها قبل كبنادر ahna duqa magaalada Muqdisho waxaan fariintan ogeysiinaynaa madaxweynaha waxaan wala wadaagaynaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibashiisiinta waxa kale oo la wadaagaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka waxa kale oo la wadaagaynaa gudoomiyaha golaha shacabka waxaan kale oo la wadaagaynaa gudoomiyaha aqalka sare waxaan ugu dambeyntii la wadaagaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya warmurtiyeedkan wuxuu ku aadan yahay go'aan ku aadan dawladda oo joojisay shirkii gobolka Banaadir ee dhici lahaa 7 bisha Janaayo waxa maanta taariikhdu tahay 8 bisha Janaayo shir isugu yimid xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka gobolka Banaadir shirkaas oo martigelisay hay'adda jilyaashan dawliga ahayn ee Sooshansa waxayna soo saareen warmurtiyeed ama baaq ku aadan sidii u qabsoomi lahaa shirkan wada tashiga gobolka Banaadir ururada bulshada rayidka waxa ay markasta u taagan yihiin inay soo dhaweeyaan tilaabooyinka wanaagsan ee dawlad heer gobol mid maamuleed iyo mid dhaxaba qorsheeyeen sidoo kale waxa ay tala siiyaan maamulada dawliga ah sida adeega wanaagsan u siin lahaayeen bulshada gobolka Banaadir oo martigeliyay magaalada madaxda dalka gobolka Banaadir oo shirkaas martigeliyay ahna magaalada madaxda dalka ee Muqdisho waxa haysa culays dhinacyo badan leh kaas oo mid bulsho mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid amni isugu jira shirka wada tashi gobolka Banaadir wuxuu dan u yahay dhammaan bulshada ku nool gobolka Banaadir iyo Soomaali oo dhan wax kasta oo wanaagsan oo caasimadda horumar laga gaaro qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo joogo xitaa kuwa qurbaha jooga dan ayuu u yahay haddaba iyada oo taas laga duulayo ururada bulshada rayidka waxay soo dhaweynayaan in la qabto sida ugu suurta galsan shirka wada tashiga gobolka Banaadir ugu dambeyn 20 ilaa 25 bisha ra'yiga runtii inta meesha isugu timid 90% waxaan dhihi karaa wuxuu badnaa inaanu ka daba marin 20 bisha laakiin haddana waxaan rabnaa inaan dawladda dhexe iyo maamulka yani gobolka Banaadir maamulkiisa labadaba aan fursad siino oo aanan dhihin maartay culayska aanan ku badin 20 bisha Janaayo maadaama ay adkaatay adeega ka shaqeynta ganacsiga dad badan oo ganacsato ah cabashadooda aad ay u fara badan tahay sidoo kale bahda waxbarashada sidoo kale bahda caafimaadka maadaama ay ku xiran yihiin dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho si loo xiro si aan joogto ahayn yani wadooyin waxa jira u xiran si joogto ah oo caqabad ku ah ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada Muqdisho iyo waxa jira wadooyin mar alla markii madaxdu rabaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan iska xigtaan ayagoon wax tixgelinaysiin maaragtay dadkii magaalada ku noolaa sida shirka wada tashiga gobolka Banaadir wuxuu muhiim u yahay aruurinta afkaarta kala duwan ee shacabka magaalada yani waa lagu wada tashanayaa waxaan aaminsanahay meeshii lagu tashaday tala fiican inay ka soo bixi doonto insha Allah taala shirka waxa qayb ka ah shirkaas
ururada bulshada rayidka ah qaybaheeda kala duwan waxayna runtii inta aan shirka la tegin isku dayayaan inay tala aruursan ay shirkaas la tagaan markii ay suurtagal noqoto shirkaas in la qabto shirka wadatashiga gobolka banaadir wuxuu muhiim gaara u leeyahay mustaqbalka iyo horumarinta adeega bulshada gobolka banaadir haddaba mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo dowladda federaalka ah waxaan ka rajaynaynaa inay tixgeliyaan codka bulshada rayidka ee gobolka banaadir iyo dhammaan bulshada rayidka Soomaaliyeed annagu labadaba waan ku hadlaynaa waxaan ku hadlaynaa bulshada rayidka Soomaaliyeed waxaan ku hadlaynaa bulshada gaar ahaan bulshada rayidka gobolka banaadir dhammaan annagoo codkii ku hadlayna sababtoo annagu wixii wanaagsan oo dhan qofka waa ku matali karnaa wixii yani xun waa laga yaabaa qofku inuu yiraahdo nagu matali kartay laakiin wixii wanaagsan qofka muslimka ama qofka Soomaaliga waa ku matali karnaa marka waxaan codsanaynaa in dawladdu codsiga aragtida bulshada rayidka ay tixgeliso isla markaasna shirkaas caqabadaha hor taagan laga wareejiyo runtii waxaan maqalnay si aysan qorshaysan maamulka gobolka banaadir in shirkaas loo joojiyo annagu waxaan muujinaynaa taageerada shirkaas waxaan kaloo muujinaynaa in la joojiyo inaan maaragtay aysan ahayn ra'yi nala fiican ra'yi aan soo dhaweynayna ma aha in shirkaas la hor istaago intaas ayuu ku saabsanaa warmurtiyeedka waa laydin qaybin doonaa insha allahu tacaala waxaan qabaa si jamhuurta meesha joogta aan u fasaxno intaas warmurtiyeedka inaad qabataan wixii kaloo waraysiga gooni u baahataanna aad wax yar dib u dhigataan waa mahadsantihin مستقبل راديو warbaahin wax dhista